أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله واصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى ياكم حسن نقدر دad muslimiina noona suurtageliyey inaan xusuusano dadaalna aan ku bixino quraanka kariimka iyadoo maanta aan u fadhiino quraanka kariimka tartan dhacay bisha Ramadaan gudaheeda 10keeda ilaa 9keeda inta u dhaxaysay in maanta iyadoo ay tahay 14 Ramadaan uu marayo maalin axadihi inaan iskugu nimaano xafladii ee dadkii tartamay Allah subhanahu wa ta'ala intuu kala siiyay loo kala sheegi doono insha Allah ta'ala. waxaanu ognahay Allah subhanahu wa ta'ala hadalkiisa wax ka qiimo badan ma jiraan. quraanka kariimkana waa kalaamu rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala hadalkiisi weey. Allah quraanka wuxuu ku yiri: ya ayuha an-nas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'un. wa Allah subhanahu wa ta'ala leeyahay dadii waxa idin yimi waano iyo wacdi baa idin yimi oo xagga Rabbi buu idinka yimaaday wacdigaasi iyo waxyaabo daaweeya laabta dhaxdeeda wixii ku sugan xanuunihi amraadul qulub waxyaabaha lagu daaweeyo waxa ugu horeeya quraanka kariimka isaga ayaa daaweynaya. Rabbi wuxuu leeyahay waa hanuun iyo naxariis dadka muuminiinta ayuu u yahay naxariista iyo hanuunkaasi. Allah wuxuu leeyahay nabi Muhammad waxa tiraahdaa: qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وعتر هذا فضل الله سبحانه وتعالى وإسلام نمضى نحريست الله وقرآنك وعلى سبحانه وتعالى ولي كواسي حكفر حينا دتك مؤمنين تا إن يكفر حانا كخير بدن وحيابها دتك يورورين يان والدنيا ذا الحريرو. وفك مسلم كادو الله سبحانه وتعالى مسلم كدقي إيمان الله سبحانه وتعالى وصيي quraanka Allah subhanahu wa ta'ala uu kala siiyay u xifdiisiyay isaga ayaa ugu sareeya dadku fadliga iyo markii la eego iyo darajada intaba. culimadana waxay yiraahdaan qofka Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyo quraanka kariimka uu baro man 'allamahu Allahu al-Qur'an wa fahima qofka alle uu baro quraanka uu fahamsiiyo wara'a anna man a'daahu Allahu ad-dunya khayran minhu faqad 'azzama haqiran wa haqqara 'aziman. qofka Allah subhanahu wa ta'ala quraan iskugu daray iyo fahamkiisu dabadeetana uu arka qofka la siiyay adduunyo inuu ka khayr badan yahay qofkaasi wuxuu kor u qaaday wax xaqiran oo liito adduunyo alle uu ku tilmaamay mataacu dunya qaliil. qofkaasi wuxuu xaqiray wax weyn oo quraanka kariimka ahaa ayuu hoos u dhigay. marka waa inaanu ogaano dadka quraanka baranaya inay yihiin ahlullahi wa khaasatuhu sida nabigu alayhi salatu wasalaam uu tilmaamay. الله سبحانه وتعالى يذكر وحكله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ربي وحله هاي كان قرآن كيه وحكوها نونيادتكو ودادا وقطو سنان تبضن وقهجاك سنان تبضن وقهنون كبضن وقفي عنان تبضن بكوها نونينيا. quraanka wuxuu bishaaraynaya dadka muuminiinta kuwaasoo ku dhaqma ee sameeya acmaashakoodii wanaagsan inay leeyihiin ajri weyn. kuwa ayaga aan rumaysnay maalinka aakhirana quraanka wuxuu u sheegayaa uguna bishaaraynaya inay leeyihiin cadaab aad iyo aad u daran. nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri: khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. waxa uu leeyahay nabigu alayhi salatu wasalaam waxa idinku khayr badan dadkiina muuminiinta ahaw qofka baranaya quraanka ummadana u faa'iideynaya baraya
حديث كان وحوها من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قفك الله سبحانه وتعالى خير لدونه وحو فهم سيا دين تأيو الله سبحانه وتعالى وفهم سيا قفك دين تأله وفهم سيو دبديتنا كل رقمة ومدنا وغيرة وحو نقونا ومد مدك وخير بدن وغفض بدن أيو قفك سيو نقونا nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay qur-aanka oo la akhriyo oo lagu dhaqmo inuu maalinka qiyaamaha qofka muuminka ahaa u shafeeco qaadi doono rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه نبي قحوري أخري قرآن كريم كاها مالك قيامها وإيمان إسقى شفاعة قاضية ونرجينيا عدي مركا قرآن كآخرين جرتي وكان نبي عليه الصلاة والسلام تلمامي قرآن كي يصومك لوضا ما أنتوانو هيسناي الله سبحانه وتعالى يكون هسنه نبي عليه الصلاة والسلام حوري قرآن كي يصومك لوضا با أدون كمؤمن كمالك قيامها أيها ربي سبحانه وتعالى ورجينيا صومكي بهذا يا وحو لا يا ربي يو أدونك وحان كمن عي الراشين يو نفتي سوحي دوني سي مالينكي ربي يو إرقا يا نوها هاي إيقا إرقا أقبل بوا أرنيات قرانك صومكي قرانك نوحو لا هاي ربي يو نيقنا وحان ندي ذي هردادا مهبينك يا ندي ذي الله وإرقا يا نوها هاي وحو لا إرقا ذي هلا أقبلو نبي قحو اللبادو ضب إرقا ذي والله أقبل لما صوعرين أيو وكان النبي عليه الصلاة والسلام وري القرآن حجة لك وعليك قرآن كما ذو كودودي دون مالك قيامه هدي آد كل غنتي هذا هي متكو هجاسن أما وحنا نقول دون مدش هذا كودودو دعوتك كفرة الله سبحانه وتعالى كود دعوية النبي عليه الصلاة والسلام وحو تلمامي قرآنكم مركي قفك مؤمن كها قيامها قفرقا وكصوبحو إن قرآنكي يولو قد يسد قف أو كلا إنو كهر إيمان دونه dabadeetna uu oran doona miyaadi garan wuxuu oran doona maya ku garan maaya maxaad ahayd wuxuu oran doona waxaan ahay saaxiibkaagii waxaan ahay qur-aanka kariimka aad akhrin jirtay ayaan ahay buu oranayaa ee maalinkii ku haraadin jiray habeenkana ku soo jeedin jiray hadduu ganacsi iyo beecshiro iyo faa'iido iyo rabxi uu jiro wuxuu oranayaa adiga ayaa ugu horeeyay maantana adiga dadka ugu horeeyay uu oran doonaa waxaa nabigu sheegay in la siin doono addoonkaasi muuminka ee qaariul qur-aanka ahaa in marka gacanta midigta laga siin doono mulkiga iyo marka madaxtinimada iyo maamulka iyo sharaftu in gacanta bidixda laga siin doono waaritaanku ayadana gacanta bidixda laga siin doono wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in lagu dejin doono madaxiisa xasiloonida taajkeedii in la saari doono labadii waalid qofka qur-aanka xifdiisan ee ku dhaqmi jiray dhalay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa la siin doona buuri laba bilodood oo adduunyada oo dhan haddii la qiimeeyo aanu gooyi karaynin oo ka qiimo badan ayaa la siin doonaa labadii waalidba waxay odhan doonaan rabbi yow biladahana la siiyey maxaan lagu siiyan lagu huwiyey bay odhan doonaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in lagu odhan doono weladkiinnii ee qur-aanka qaatay ku dhaqmi jiray ayaa sababkiisa la idinku siiyey ayaa looga jawaabi doonaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii isaga qaari'ul qur-aanka xifdisanaa ku dhaqmi jiray isaga waxaa la odhan doonaa qur-aankaagii akhri darajooyinka jannada iyo dabaqyadana xagga sare u fuul baa lagu odhan doonaa ama dadeji qur-aanka ama kala dhidhigay halka ugu dambaysa ayadahaagii ay ku dhammaadaan ayuu noqon doonaa mansilkaaga ayaa lagu odhan doonaa addoonka qur-aanka akhrin jiray waxaa kale nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in lagu odhan doono qofka qur-aanka akhrin jiray maalinka qiyaamaha markii la keeno isaga iyo qofkii ku dhaqmayay baa la keeni doona qur-aanka naftiisii ayuu nabigu sheegay in la keeni doono iyo dadka ehelka u ahaa qur-aanka ku dhaqmi jiray qur-aanka waxaa hogaaminaya suuratu lbaqara iyo suuratu aali cimraan waxayna ka doodayaan saaxiibkoodii bay difaacayaan maalinkaasi allahna subxaanahu wa tacaala ay weydiinayaan inuu u ergeeyo oo jannadiisa uu geliyo qofka isaga qur-aanka xifdiisan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu la darajo yahay maca asafarati alkiraami barara malaa'igta ee qur-aankaba saxaayibteedii loo soo dhiiba ayuu xagga darajada markii la eego ayuu macahoodii u noqon doonaa buu yidhi qofka isaga qur-aanka akhriya se uu ku adag yahay nabigu wuxuu laba ajri buu leeyahay akhriinta uu akhriyana ajri baa laga siin doonaa ku celcelinta aanu ka daalina ajri kale ee tacabkaasi uu ku bixiyey ayadana ajri labaad baa laga siin doonaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qur-aanka akhriinta la akhriyo akhriintaasi baa layska ajri siinaya layska thawaabinaya nabigu wuxuu yidhi man qara'a xarfan min kitaabi illah falahu bihi xasana waalxasanatu bicashri لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي نبي عليه الصلاة والسلام وحليه هاي قفك آخر حرف كما ذا كتاب كالله وعلى سين دون بوري حسنه oo xasanadana waxay ka bilaaban doontaa buuri 10 bay ka bilaabanaysaa nabiga kalimuhu soo qaatay wuxuu yiri alif laam mim wada socota ma oranaya buuri al xaraf oo 10 ajri ba laga siinaya ma dhahaya buuri
wuxuu yidhi alifkana gaarkiisi waa 10 laamkana wuxuu yidhi gaarkiisa waa 10 miimkana waa gaarkiisa waa 10 alif laam miim marka tiraahdo 30 ajri Allah subhanahu wa ta'ala ugu yaraan ayuu ku siinayaa waxaa loo baahan yahay quraanka aanu baranayno inaanu ku dadaalno ayaa loo baahan yahay quraanka aanu ku cilcilino akhrintiisa aanu badino ramadaan iyo walaa qeyrkii intaba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay quraanka had iyo jeer qofka bartay hadduu marka akhrintaan u badinin in quraanka uu ilaabayo saan u dhicin arrimahaasi baa loo baahan yahay inaanu joogtayno akhrintiisa mar walba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dadaala quraanka akhrintiisii allah ayaan ku dhaaran dhagaxa naftiisa gacantiisii ay ku jirtaan ku dhaaranaya nabigu wuxuu quraanka ayaa ka fakasho badan buuri geela xariga laga sii daayay macnaheedu marka waxay noqonaysaa qofka hadduu quraanka uu barto akhrintaan u badinin wuxuu la mid noqonayaa kaanama isagoo aanu baranin oo kale buu ku noqonaya hadhow uu ku adkaanaya marka waxaa loo baahan yahay quraanka akhrintiisa inaanu badino aanu ku cilcilino had iyo jeer baa loo baahan yahay qofka quraanka intuu bartay dabadeetana iskaga tagay quraankana sida uu ku ilaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofkaas in la ciqaabayo حديث صحيح البخاري وصاصاري نبي عليه الصلاة والسلام وحليهاي هبين هذا كما ذيب الله ملك بأي ما ذي بوري دبدأتنا ويك حيان بوري وعانو تغني بوري قفل السيحيي متكلو دول تاغن يهي دغح وينا مدخا وكغا دفنايو مدخنا marka laba uu kala dilaaciyo dhagaxii markii uu ku dhuftana dhagaxii uu soo qaadanayo intuu dhagaxa uu ku maqan yahayna madaxiisadii hore laga dhigayo dabadeetana sida mar walba uu ku cilcilinayo ayuu nabigu wuxuu yiri baan arkay buuri waxaan ku wari buur Allah xumaan ka nazahane qofka sida loo gelaya muxuu ahaa buu nabiga uu weydiiyay labadii malag waxay ku yiraahdeen waan kaaga warramaynaa waxa lagu wari qofka aad aragtay isagoo meesha la jiifiyay madaxana laga garaacayo mar walba la kala dilaacinayo haddana lagu cilinayo haddana inta dhagax la soo qaaday madaxiisadii hore laga dhigaya sida loo ciqaabaya lagu yiri waa qof weeye quraanka marka hore uu bartay dabadeetana quraankii markii uu bartayna iskaga tagay salaadiina ka seexday qofkaas lagu sheegay inuu yahay qofka sida loo ciqaabayo nabiga la tusiyay marka macnaheedu waxay tahay dad quraanka lagu baray yaraantaada markaad weynaatay waa inaad joogtayso haddii intaad baratay aad ka dhaqaajiso waxaad ogaatay ciqaabka adag nabiga uu sheegay inuu ku sugayo Allah subhanahu wa ta'ala hadaan ku soo hadiyeynin وكان نبي عليه الصلاة والسلام tilmaamay qofka quraanka yaqaano inuu yahay qof khayr badan Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyay inuu mas'uud oo kale wuxuu oran jiray cilmi qofkii doonaya buuri quraanku hal laazima buuri isaga ayuu ka helaya buuri dadkii hore ee kuwa dambe khabarkoodii iyo warkooda halkaas uu ka helaya wax walba oo wanaagihi quraanka uu noo sheegay wax walba oo xumaanihina quraanka uu nooga digay labadaasi hadii aanu qabsano quraanka kariimka iyo sunnada nabigana waxaanu noqonaynaa kuwa badbaada fi dunya wa fil aakhirah nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri hadaad qabsataan buuri kitaabka Allah iyo sunnada nabigu waxaad noqon doontaan buuri kuwa nabadgalayaad ahaan doontaan buuri labadoona kuwa la kala kaxayn karaya ma aha ila qiyaamada yimaadaan ayagoo wada socda marka macnaheedu wuxuu noqonayaa in quraankii aanu barano waa loo baahan yahay in quraankii aanu ku dhaqanana waa la doonayaa ummadda in la gaarsiiyana waa la doonayaa sadaradeeda salafka xaalkoodii waxa ka mid ahaa inay oran jireen saxaabadu waxaanu ahayn kuwa barta quraanka aayadihiisa 10 aayadood dabadeedna waxay yiraahdeen 10 aayad kamaana gudbi jirin ilaa macnahoodii iyo tafsiirkoodii aanu fahamno dabadeedna aanu ku dhaqanno waxay markaa oran jireen waxaanu ahaanay kuwa bartay quraankii iyo cilmigii iyo camalkii oo wada socda macnaheedu waxay noqonaysaa inaanu barano alfaada quraanka kariimka tafsiirkiina aanu barano xadiidkiina aanu barano dabadeetana wixii aanu baranay ummadda aanu gaarsiino waana mid loo baahan yahay cid walbana xil uu ka saaran yahay way muslimiinta dhamaantooda waxa laga rabaa inay u istaagaan wadiifadaasi waxa loo istaago waqti lagu bixiyo juhdi la geliyo waxa uu khayr badan kalaamka Allah subhanahu wa ta'ala marka waxaan leenahay ardada iyo waalidiinta iyo dadweynaha dhamaantooda Allah subhanahu wa ta'ala waxaanu ka baryaynaa بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه نودن بدافو رمضان كلاجو جرى سبب كيسي إنه الله سبحانه وتعالى قرآن كنجو هنونيو نوفو ذيو نوافجيو نكرسيو نقدجنا أرض ذي دمان توضع كوا قرآن كوضع حفظية كوهجاسن كتوسن ومدنا هدو إنه غدا الدعاء ذي ويدب مركب وحوبرة waayo cilmiga waa la kala dhaxalaa jilka maanta jooga ayaa la baraya ayagana hadhow markii la gaaro umada ka dambeysay barayaan oo sidii salafka ay sameyn jireen iyo khalafka sidaas uu ahaa waana sida nagu soo gaartay weeye quraanka iyo sunnada intaba hadii cid walba iska seexan lahayd lama heli lahayn quraan la xifdiyay sunna la bartay intaba dadaal umada ay bixisay intoodii hore ayaa lagu helay maanta waxa la haysto khayrka iyo nicmada iyo barwaaqada marka waxaan leenahay ardadii quraanka tartanka gashayna
dhammaantoodii way dadaaleen allah subxaanahu wa tacaala ajrigoodii ha u badiyo qofkii marka xoogaha imtixaan markii la gala dawaad og tihiin oo cid walba siday doonaysa uma keenayso natiijadu waxaa laga yaabaa ardayga ugu xifdinta badan markii su'aalo la weydiiyo inuu markaa waxaa dhici karaysa uu hakada dhici karto markaa sidaasi uu ku hooseeyo marka macnaheeda maaha ardadii markaa xoogaha kaalinta koowaad gashay ee wax heshayna in ayaga ugu sarreeyeen ma aha arday badan oo markaa xifdisanaa qur-aanka ayaa laga yaabaa in meeshii loo baahnaa aanu soo gaarin sabab markaa jirta daraaddeedii imtixaankana kan adduunya ugu fudud ee kan aakhiraba ka daran nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qof markaa muslim ahaa ee muslimiinta ku dhex jiray la cibaadaysan jiray markii uu dhinto qabriga la dhigo su'aal waxaa la weydiin 3 su'aaladood oo qura hada waxaa laga yaabaa qof kasta oo meesha jooga hadda inuu garan karayo waxba kuma aha waxaa la oran doonaa rabbigaaga waa ayo allah wey nabigaagana nabi muxamed wey diintaadana diinta islaamka soomaha way fududa laakiin nabigu wuxuu sheegay markii qabriga la dhigo qofka aanu ahayn mid ku dhaqmi jiray qofka aanu ahayn mid joogteen jiray inuu markiiba uu ilaabayo dabadeetana wuxuu bilaabayaa haa afkii inuu kala qaado inuu yiraahdo laa adri sami'tu an-naasa yaquluun faqultuhu garan maayo iminka waayaga wuxuu leeyahay ma garanayo oo waan ilowsanahay dadka ayaan maqli jiray ayagoo wax sheegaya anigana waan ka daba oran jiray taasi macnaheedu waxay tahay waxya barashadu faa'iido ay leedahay kama tahay haddii aad barato wixii aad islaamnimadaada ku hagaagi lahayd iimaankaaga ku hagaagi lahaa iyo mustaqbalkaaga dantaada ku jirta haddii aad baran weydo oo dadka dhinacaad ka raacdo hadhow su'aalaha ku gaarka ahaa markii malaa'igta ay ku weydiiso ayaad bilaabi doonta garan maayo dadkaan maqli jiray maxay ahay dabadeetana waxaa la oran doonaa ha garanin hana ogaanin baa lagu oran doonaa halkaasay ku bilaaban doonta ciqaabkiisa allah naga badbaadiyo subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala waxaanu weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo fitnada adduunya iyo midka qabriga iyo midka aakhira intaba inuu allah subxaanahu wa tacaala uu nagu nooleeyo islaamnimadu alla inuu nagu dilo islaamnimadaasi naguna soo saaro inagoo muslimiina wassalaamu calaykum waraxmatullahi